usoo dhaweynayna kulanka inaad briefing nagu siiso xaaladda dalku marayo iyo wasaaradda maaliyadda runtii halka ay taagan tahay sida aad sheegtay wax badan baad runtii khudbadaada ku jiray oo ku tilmaantay dhibaha jira runtii wasaarad wada nabad qabta runtii ma jiro wasaarad walba culeyskeed iyo dhibteedu runtii waa u jira ha kala culeys badnaadaan waxaad moodaa runtii wasaaradaha laftoodii dawliga ah inaanay sinnayn oo aanay u sinnayn hawlihii qaranka ay hayeen ama mandatekoodii ha noqdo facilitieski ay ku qaban lahaayeen runtii inay aad u kala fogtahay taas cadaaladda cidda laga rabaa maaha wasaaradda cadaaladda waa wasaaradda maaliyadda inay isu dhaweyso oo mid walba adeegeeda at least wax ku dhow midna looma buuxin karo waxeede inay wixii lagu dari karo ama lagu kordhin karo iyo tii siyaada haysata ka qabadkeedaba runtii waa xil wasaaradda maaliyadda saaran inay eegto cirkiiyo dhulkay kala marayaan baad moodaa wasaaradaha laftooda example yar haddaan ku siiyo annagu iminka wasaaradda boston iminka jooga waxay ku jirtaa dhismihii 1944 ingiriisku u dhisay annagoo shiraynu jiirkuna dul mara macnihii meel climate waana hay-addii dalka u qaban lahayd facilitieska u weynee telecommunicationka iyo boosta qaban lahayd wey adeeg shaqo oo ay qaban kartaa runtii ma jiro qalab ma yaallo wax allaaliya wax lagu shaqeeya runtii ma jiro waxa weeye waana wasaaradaha laga filayo income-ka aad sugayso inay qeybta u weyn runtii ay ka qaataan ma laha shaqaalaheedu sida dhiirigelnimaha ay hay-adaha maaliyadda iyo hay-adaha lacagta ku shaqaleya wax soo saar kale ay leedahay oo kale kuwa kaloo nala midhina runta waa jira markaa run ahaantii waxaanu codsan lahay in si gaar ah loo eego wasaaradaha aadka u liita ee qaranku inuu isa soo gaadho u baahan way taasay wax ku soo baxayaan taasaynu ku dhisi karnaa dhinac kasta oo dhaqaale uu inaga maqan yahay meel kasta oo aynu wax ka qaban karnaa adeegayaal baan u nahay runtii wasaaradda maaliyadda u shaqaynaya taasi waa qodob qodobka kale waxa weeyaan kulamada ay wasaaradda maaliyaddu la yeelato wasaaradaha laftooda had iyo jeer dee waxba lasoo bandhigaa dabcan dhaqaalaha dalku ma wada buuxin karo baahideenna oo dhan ma lihin wax walba ha la buuxiyo laakiin inay wasaaradda maaliyaddu u furnaato dhagahooda u furnaadaan waxyaabaha ay prioritiska wasaaraduhu siinayaan arrimahooda ugu muhiimsan runtii aad iyo aad bay inaan ku warhella uun inta badan inta la dhagaysto marka dambe golaha wasiirada tiyoo ka baxday oo waxbana aanay jirin waxbana aanay ku qorayn runtii dee waa ayaan darra sideeda taa lafteedana priority-ga lanoo yar eego wasiirka runtii iyo wasaaraddaba runtii waanu ka codsanayna qodobka kale barjado ku jiro oo mararka qaar wasaaraddu priority ay u yeelato inay tan horreysiisato oy tan ayaa mararka qaar dhacda taa lafteedana waxaanu leenahay mararka qaar arrimaha ka muhiimsani haddii ay yimaadaan masalan wax barjedka ku jiray oo kala wareejinta oo kale runtii ay timaado waxaanu jeclaan lahayn sacaatul wasiir in arrintaana wasaaradaha loo eego si aynu u gaadhno yoolka aynu doonayno waayo inaga oo wada soconna intaasoo hay-adood mid waliba adeeg bay qaranka u qabataa haddii aanay wasaaradihii iyo hay-adihii dawliga ahaa aanay wax wada shaqaynaya oo nidaamkooda iyo adeegoodu isku dhow yahay haddii aanay noqonna runtii waxaa laga yaabaa in ay ka dhinacuun ay ka dheeli ay ka ahaato aanay dhammaystirmin runtii aad iyo aad baan kuugu ammaanaynaa kulankaa wanaagsan iyo sida saraaxadda le runtii noogu soo bandhigtay in aad dib u eegtaan arrimaha muhimka ee wax laga qabanayo inaad xusto wasaaradaha qaarkoodna runtii aad iyo aad baan kuugu ammaanaynaa waxaananu leenahay sacaatul wasiir arrimahaasoo dhami runtii waa hawl idin hortaale wasaaradda maaliyad ahaan oo go-aanka qaadashadeeda u dambaysa runtii idinku ay leedihiin dabeedna golayaasha runtii ay dee ansixinteeda iyo hawlaheeda ay leeyihiin markaa runtii waxaanu ka codsanaynaa bal in la eego meelaha dee asfalasaafiliinka ah iyo meelaha xidigaha si aanad u wada qabanoonad oo dhan 3% baan u kordhinayaa dhammaantood ama aanay si siman dee aanay u noqona tii mashaariicaad hore ugu qabatayna dee sanadkan ay iyada laga hakiyo kuwii mashaariican wax loo qabanna dee loo sameeyey imika loo abuuro aad iyo aad baad mahadsanta waanu liqnay runtii horta hadalka guud ahaantiis waxaa dhameeyey faysal oo kala taga wasaaradaha iyo dee inaad wasaarada soo egto taasi waa si guud wasaaradaha tagay iyo wasaaradaha hooseeya ee wasaarada la isu celiyo waa si guud waayo wasaarad waliba adeeg unbay dee qaranku u baahan yahay lama dhiseen haddaan loo baahnayn lama dhiseen waxaanu ku darayaa hal qodob oo yaroo ay muuqday mid waxa weeyaan shaqaaluhu had iyo jeraale waa uu shaqeeyaa waxaan ay qaataanna waad ogtahay halka ay taagan yihiin hedh baa jiray dhiirigelinta la yidhaahdo oo wasaarada qaarkoodna qaataan wasaarada qaarna aanay lahaynba
xirka dhiirigelinta maadaama shaqaalu de qof aad u shaqeeyo si fiican u shaqeeyo qarankii waajibaadkiisii fushaday oo de dhiirigelintaas wax weyn beetreso xirkaaso si guud baan u hadlaya wasaaraddu u wada baahay in xirka dhiirigelinta qodobna waxa weeyaan waxa soo kordhay wasiiro fara badan ee wasaaradda walba ku soo kordhay wasiir ku xigeenna iyo wasiir dawlayaala gaadiid bay doonayaan gaadiidka noocaas ah ma miisaaniyaddan soo galilaa oo wasaaraddu waliba miisaaniyadda soo gelisaa hawshan kale adiga xadiday 3% yiri mise meel kale oo horumarinta iyo adigu aad meel u samayn doonaa waa gaadiidka wasiirada cusub ee dawladda ku soo kordhay taasoo